naasa iyo uber ayaa waxay ku dhawaaqeen toddobaadkan inay isku biiri doonaan si ay u dhisaan taksi duula oo iswada. Sharikaddu waxa ay sheegtay taksigan duulaya inuu ku shaqayn doono koronto lana isticmaali doono cayaaraha Olympiga ee ka dhici doona Los Angeles 2028. Waxay hadda la galeen heshiis sharikadaha dayuuradaha sameeya iyo sharikadaha guryaha si loo helo meel ay ka duuli karaan oo ay ku soo degi karaan. Markaa waad aragtaa arrintu inay ka tahay dhab. Facebook ayaa sheegay dadka isticmaala sawirro qaawan oo video inay diri karaan. Waa arrin muran ka jiro. Waa mid dhex maraysa Facebook iyo dawladda Australia oo loogu talagalay in laga hortago qaawanaanta. Sharikaddu waxa ay sheegtay sawirrada inaanay kaydin doonin, laakiin meel laga helaa ay jiri doonto dhinaca qalabka teknolojiga sidii loo joojin lahaa cid kale inay la soo baxdo sawirka. sidaynu ognahay had iyo jeer waxa la yiraahdaa rashka yaan la taaban. khubarada Disney ayaa taa ka shaqaynaya. Ujeedaduna waxa ay tahay in laga caawiyo dadka indhaha ama aragoodu aan wanaagsanayn inay dareemi karaan marka rashka la ridayo. Waxay ku magacaabeen dareenka rashka. Waxa la samaynayaa meel biyo ka soo bixi karaan oo halka wax laga daawanayo u bedeli karta wax qofku haddii uu taabto uu dareemi karo. magaalada Zurich koox culamo sayniska ah ayaa shaaca waxa ay ka qaadeen mashiin ama robot ka shaqaysiin kara wiishka la raaco. kuwa baaritaanka samaynaya ETH Zurich ayaa waxa ay ku adkaysanayaan intanu faa'iido muhiim ah ay u yeelan doonto haddii cid la badbaadinayo aayaha. mashiinkan robot ayaa ka shaqaysiinaya mashiin kale. waa tallaabo weyn oo mashiinka robotku uu gaadhay.